السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوريالي dhegeystayaal baa ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luqada afka Ingiriisiga. magacaygu waa Xasan. goobta cashirku niga imanayayna waa Xasan Qurani Channel. waa buugeeni cusba ee New Concept English qaybtiisii koobaad ama buugiisii koobaad ee la odhanayay First Thing First. daawadayaal inta badan waxaan soo gelin doonaa 4 maalmood toddobaadkii ilaa 5 maalmood ayaan soo gelin doonaa intuu buugu cusub yahay si aan hore weyn ugu socono. Hi everyone, this is Hassan from Hassan Qurani Channel and welcome to our course of learning English language. Definitely this is a new book called New Concept English Part 1 First Thing First. Okay, and then we will be having lessons almost 4 days in a week or 4 days in a week to 5 days in a week until we reach the 35 lessons or 45 lessons. Lesson 7. Casharka toddobaad. ciwaankiisu waxa uu yahay maanta. Are you a teacher? Are you a teacher? ma macallin baa tahay? Listen to the tape. dhagayso casharada. Then answer this question. kabacdina ka jawaab su'aashan. Listen to the tape. daawada iyo dhagaystaba saan hore u soo sheegay buugani waxa uu wataa cajalad ayuu wataa. haddii Afrika baad joogto ama adduunka kale baad joogto isaga iyo cajaladiisaba waad isku dalban kartaa. midda kale wuxuu buugu leeyahay buug macallin waa inaad mar walba aad ka ardayda aad daawade aad iibsataa. Listen to the tape. dhagayso cajalada. Then answer this question. Answer kalmada oo fiirsada. Answer this question. What is Robert's job? What is Robert's job? maxay tahay shaqada Robert ninka la yiraahdo? Robert iyo Sophia ayaan halkan maanta ku haysanaa oo sheekadu dhex maraysa. Robert, I am a new student. I am a new student. anu waxaan ahay arday cusub. Robert waa ninka madaxa madowle ee koobka kafeega soo qaatay ama shahaba. I am a new student. anu arday cusub baan ahay. My name is Robert. magacayguna waa Robert. Sophia ayaa tiri nice to meet you. horaan u dhiganay nice to meet you. and barasho wanaagsan. My name is Sophia. magacaygu waa Sophia. daawada iyo dhageystaba haddii aad cashirkan aad nagu soo beertay waxay ka dhigan tahay cashiradii koobaad ilaa iyo cashiradii lixaadna waa ka horeeyaan oo channelka ay ku jiraan. waad bilaabi kartaa imikaba haddii aanad horay Ingiriisiga aanad u baranin oo buugan ayaad nala qaadi kartaa. Nice to meet you. barasho wanaagsan. My name is Sophia. magacaygu waa Sophia. Robert baa yidhi are you French? Are you French? waxa tahay Faransiisad ayaa tahay. Are you French? ma Faransiisad ayaa tahay? Sophia ayaa tiri yes I am. ha waan ahay. horena waan soo dhiganay Sophia in French tahay baan jeclahay. Sophia, are you French too? su'aal bay weydiisay isagana. Are you French too? adiguna ma Faransiis baa tahay sidoo kale? Robert, no, I'm not. No, I am not. maya maihi. Sophia, what nationality are you? What nationality are you? wadankee ayaad u dhalatay? jinsiyadaadu maxay tahay? What nationality are you? Robert baa I'm Italian. Talyaani ayaan ahay. Robert baa su'aal weydiiyay are you a teacher? ma macallimad baa tahay adigu? Sophia ayaa tiri no I'm not. maihi. Robert baa yidhi what's your job? maxay tahay shaqadaadu? Sophia
I am a keyboard operator. I am a keyboard operator. Macnaha waxaan ahay qof dhinaca kombiyuutarada ka shaqeysa. I am a keyboard operator. I am a keyboard operator. waa gabadhan xafiiska fadhida markaa dee kombiyuutarkii wax qarqaraacidii waxa uu qaabilsan waa keyboard waxa la yiraahdaa keyboardkan caadiga wax la qaraacayo kombiyuutarka hor yaala. Sophia, what's your job? maxay tahay adigu shaqadaada? maxay tahay shaqadaadu? What's your job? What's is ba halka ku dhex jirta mugto la soo gaabiyay. Marasa what's your job? maxay tahay shaqadaadu? Robert Barry, I am an engineer. I am an engineer. I'm an engineer. waxaan ahay engineer. New words and expressions. New words and expressions. kelmadaha cusub aan ka baranay iyo oraha cusub aan ka baranay halkan. I oo aniga ah. Am oo ka timiday ficilka be ee ahaanshaha. Masalan oo kale I am waxaan ahay. Saa loo akrinay wada arkaysa. R ma jirto raada lama akrinayo mogt. waa B oo iyaduna ah ficilka ahaanshaha bay ka wala yimaadeen am iyo name waa magaca. What's your name? magaca. What ma odhanaysid waa inaad oo ka dhigtaa what oo ka dhigan maxay dee ma arkaysa. What's this? waa maxay waxani? Nationality waa maxay? waa jinsiyadda markaa meesha aad u dhalatay. Job waa shaqo. Job macnaha waa job shaqo. What's your job? maxay tahay shaqadaadu? Keyboard k ma odhanaysid waa keyboard oo ah keyboardkan computerka hor yaale wax lagu qarqaraacayo. Operator waa qof meel wax ka shaqeeyo hawl fulinaya moogtahay. Operator ama machine joog ama maxaan ku dhahdaa teeb qaraac qofkii meel wax qaraacaya meel machine oo shaqeynaysa joogo operator leedahay. Engineer. Lesson 8 cashirka 8. What's your job? maxay tahay shaqadaadu? Listen to the tape dhagayso cajalada. Then answer the questions. daawada iyo dhagaystaba sidaan ereyada u akhrinayo iyo siday u qoran yihiin waa kala duwan yihiin. marka mar walba dhawaaqa ayaad u fiirsanaysaa. dhawaaqa aan ku dhawaaqayo ayaad u fiirsanaysaa. ha ku mashquulin ereyadu siday u qoran yihiin waayo siday u qoran yihiin iyo sidaan ugu dhawaaqayaa isma leh. luuqadda afka ingiriisigu ma leh hab loo akhriyo hingaad ah laakiin erey walba waa inaad xafidaa. iskuma kicin kartid macnaha sida Soomaaliga oo kale. I am a policeman. waxaan ahay nin booliis ah. I am a policewoman. I am a policewoman. waxaan ahay gabadh boolisada. I am a taxi driver. waxaan ahay maxaan ku dhaha taksiile. I am an air hostess. waxaan ahay kalkaaliyaha dhinaca diyaaradda. I am an air hostess. waxaan ahay staafka ama kalkaaliyaha dhinaca diyaaradda. I am a postman. waxaan ahay nin boostaalaha oo waraqaha guri to guri geeya markaa guri ilaa guri geeya. I am a nurse. waxaan ahay kalkaaliya caafimaad. I am a nurse. waxaan ahay kalkaaliya caafimaad. I am a mechanic. waxaan ahay nin mechaniga. waxaan ahay nin mechaniga. I am a hairdresser. waxaan ahay maxaan ku dhahdaa tima jare. I am a housewife. waxaan ahay hooyo guriga iska joogta. waxaan ahay hooyo guriga iska joogta guri joog.
I am a milkman. I am a milkman. waxaan ahay nin caanaleya waxaan maqli jiray dhulkeenii maxaan ku raacay islaan caanaleya moogta nin caanaleya ayaan ahay. New words and expressions. waxyaabaha halkan aan ka baranay iyo odhaha halkan aan ka baranay macnaha ereyada halkan aan ka baranay iyo odhaha aan ka baranay waa markaasi bal u fiirsada. Policeman, policeman nin booliisa, police woman gabadh boolisada, taxi driver, taxi driver darawal maxaan ku radaa taxi leh aan idhaahde. Air hostess waa maxaan ku radaa kalkaaliyaha dhinaca diyaaradda. Postman waa dhinaca maxaan ku radaa ninka boostaalaha ee guryaha geeya markaa waraqaha. Nurse kalkaaliyaha caafimaad. Mechanic waa maxay waa nin mechaniga. Hairdresser waa raisle tima jare. Housewife guri joog ooyo guriga joogta. Milkman waa nina caanaleya. garanayda wadaya dhegaystaba kusoo dhawaada cashirkeenii sagaalaad haddana lesson 9. How are you today? sideed maanta tahay. How are you today? sideed maanta tahay. Listen to the tape. dhagayso cajalada. Then answer this question. kadibna ka jawaab su-aashan. How is Emma? siday tahay Emma? How is Emma? siday tahay Emma? Stephen iyo Helen baa wala kulmaya saad sawirkaba kuwiin ku arkaysaan. waa bal hadalkooga kulay isaan arkaya waa labayn nin iyo naag miya. Let's see it. Stephen waa nin, Helenna waa gabadh. Hello Helen. nabad Helenay. Helen. Hi. nabad Stephen. Stephen. How are you today? said maanta tahay. Helen. I'm very well. Thank you. aad baan u fiicanahay. waad mahadsan tahay. And you? adiguna. Stephen baa I'm fine thanks. I'm fine thanks. waan fiicanahay mahadsanid. Stephen. How is Tony? siduu yahay Tony? Tony waa odayga maxaan ku rahay Helen saan filayo. Helen. He's fine thanks. waa fiican yahay mahadsanid. How is Emma? say Emma tahay. Emma waa islaamta Stephen saan jeclahay. Stephen baa yidhi she's very well. aad bay u fiican tahay too sidoo kale. Helenay. Stephen. Goodbye. nabadgelyo. Helenay. Nice to see you. waan ku faraxsanahay aan is aragno. Nice to see you. Helen baa tiri nice to see you too. waan ku faraxsanahay in aan ku arko. Stephen. Goodbye. nabadgelyo. sheekadaasaan ku joojinaynaa daawadaya dhegaystaba ee dhex martay Stephen iyo Helen ayaan kuwiin ku joojinaynaa. meelaad joogtaanba waxaan ilaahay cashirkaasi wax ku celceliya. ku celceshada buuggana waad heli kartaan haddii aad Afrika joogtaan. raadsada si aad cashirka uga marsataan. daawada buuggu wuxuu ka kooban yahay 144 cashir. haddii aad videogan daawatayna waxaan kaa codsan lahaa kow inaad subscribe siiso, like, share, anad run ahaantii wixii faallaa iyo talaaba aad ka bixin kartood commentiga nooga tegi karto. waa xasan karaani oo leh Ramadan Kariim. wadiga dugsiyada waxaan nahay wanaga macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho. waagii baryaba awbax laga waraabsho.